son ee magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Soomane ayaa warbixintan ka diyaariyay. inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku geeriyootay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax loo adeegsaday gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa uu ku dhex qarxay kaalin shidaal ah oo ku taalla ka soo horjeedka xaruntii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ama agagarka taalada daljirka Daasoon degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. gaariga qarxay ayaa waxaa la sheegay inuu dhex yaalay gudaha kaalinta shidaalka waxaana laamaha amniga dowladda Soomaaliya ay sheegeen in qorshaha gaarigaasi uu ahaa in la bartilmaameedsado meelo kale oo ka mid ah magaalada Muqdisho. kooxaha dabdamiska gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in ay baqtiijiyaan dabka xoogan oo ka kacay qaraxa iyagoo isku dayay in ay ku dadaalaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen in dabka uu gaaro goobaha kale ee ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo warbaahinta uu kula hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay waxa uu sharaxaad ka bixiyay halka la damacsanaa gaariga iyo khasaaraha dadka shacabka ka soo gaaray. qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah. gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari ma aragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan petrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga. khasaaruhu ma badna waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta petrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof inta la og yahay. waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah. gaarigana sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari baakin ku jiray oo halkan petrol stationka lagu xareeyay bacdama aad ogtihiin eriyadan iyo goobaha meeshan wadooyinka soo galo dhan ay checkpointiyo ay ciidanku joogaan ay yihiin. maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan. marka ciidanka runtii waxaan ku ammaanaynaa feejignaanta dheeriga ah oo ay ka muuqato maalmihii la soo dhaafay. waxaana rajaynayaa inay sii laba jibaaraan nimanka cadowga ah de qof dhimanaya cidna ma celin karto oo naftiisii raba inuu dilo oo caaway idinku intaad jiiftaan guriga ku soo diyaarsanaya sidii uu isku dili lahaa qofna ma celin karto. laakiin waxaan ku dadaalaynaa inuu khasaaruhu yaraado. waxaan ku dadaalaynaa in shacabka uusan khasaaro badan uusan gaarin. Muqdisho oo aysan ahayn markii ugu horeysay ee qarax noocan ah uu ka dhaco balse tani waxay qayb ka tahay feejignaanta shacabka ku nool caasimadda oo dareenkooda uu la nuglaaday la qabsiga qaraxyada ka dhaca inta badan magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. aad u mahadsan yahay Cumar Maxamed Soomane ayuu ahaa warbixintaasi ka diyaariyay qaraxii maanta